marxuumka la dilay oo lagu magacaabo Xaashi Cumar Xasan ayaa xilligaasi ku sugnaa degmada Dharkinley ee gobolka Banaadir sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedda lagu kalsoon yahay. qaraxa ayaa waxaa lagu soo waramayaa in marxuumka loogu xiray gaarigiisa isla markaana uu dhaawac soo gaaray mar dambe u geeriyooday. ma cadda sababta rasmiga ah ee loo beegsaday marxuumka oo ahaa nin qurba jooga mana jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka Soomaaliya. Xaashi ayaa ahaa nin dhalinyaro ah oo firfircoon isla markaana si weyn loo yaqaano, waxaana si aad ah loogu xasuustaa xabsigii laga soo daayay ee dalka Talyaaniga. waxa uu muddo 19 sano u xirnaa dawladda Talyaaniga iyada oo loo haystay dilka gabar wariye ah iyo kaamiriiste u dhashay dalkaasi oo la dilay sanadkii 1994. Ilaria Albi iyo kaamiriiste Milan Harovietin ayaa u shaqaynayay warbaahinta Rai ee dalka Talyaaniga. maxkamadda magaalada Rome ayaa ugu dambeyn dambi ku weysay Xaashi Cumar Xasan, waxaana sidoo kale ay u xukuntay 3.181 milyan oo lacagta yuuraha ah. Xaashi ayaa xukunkiisa kadib Muqdisho u soo wareegay halkaas oo ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyay kuna samaystay saaxiibo badan isagoo sidoo kale waqti la qaadanayay ehelkiisa oo ay ismoogayeen muddo aad u dheer maadaama 19 sano uu ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Talyaaniga. intii uu xabsiga ku jiray Xaashi waxa uu marar badan ka hadlayay in isagu aanu ka dambeyn dilka loo geystay suxufiyiinta u dhashay dalka Talyaaniga ee Muqdisho lagu qaarajiyay 9-meeyadii, falkaas oo si been abuur ah isaga loola xiriiriyay. dadkii yaqaana marxuumka waxay ku sheegeen inuu ahaa nin dhalinyaro ah oo firfircoon, adkaysi badan, una soo dulqaatay muddo dheer xabsiga uu ugu xirnaa sida gardarrada ahayd. si kastaba dilka Xaashi ayaa qayb ka noqonaya falalka ammaan darri oo maalmihii dambe ka dhacay magaalada Muqdisho oo haatan ay ka bilowdeen howlgallo ay ku dhawaaqeen madaxda ugu sarreysa laamaha ammaanka Soomaaliya. inkastoo howlgalladu weli ay socdaan, haddana Muqdisho xaafado ka mid ah waxaa ka dhaca falal amni darro oo loo geysto dadka rayidka ah, gaar ahaan dhaca moobeelada iyo sidoo kale beegsiga guryaha qaar ee magaalada Muqdisho oo barihii dambe magaalada Muqdisho laga soo sheegayay in ay jireen kooxo hubaysan oo u dhacay guryaha ku yaala magaalada Muqdisho. lama oga dilka loo geystay Xaashi inay la xiriirto kiiskii ugu xirnaa muddada dheer dalka Talyaaniga, inkastoo uu helay lacag magdhow ah oo lagu abaal mariyay muddadii dheereed ee sida sharci darrada ugu xirnaa dalkaasi, inkastoo waqti badan uu uga lumay xabsiga